السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أوراكسن أو حسرة أرضي مركز تدريد كجوكتان كسور وهذا برشة اللغة الإنجليزية إن شاء الله تعالى وحنا قبل عبدنا تولي إنجليش تنسس لبي تمك تنسي لغة الإنجليزية إن شاء الله تعالى نقول قلي تونا ستة سماء من وقت بدنا ينان هينين تولي إنجليش تنسس كمان خلقها اللي يحل بولين there are واحد شراء there are واحد شراء تولي تنسس لبي تمن تنس ترتب مقشوة وقتي مركا وقتي هذا عادي قب يعني فعل كست أول قبنا وقتي بوليه هي marka waxa la waxaynu ficil qabanayno oo dhanayna shamska aynu sameeyno waqtiyo la qabta ayaa jira marka waqtiyadaas waxay qaysamayaan wana arki doona insha Allah taala in dhabaystirantan waxa lagu marka 12 nisba jira in English luqadda Ingiriisiga about 8 of them state kamida baa lagu are mostly used ayaa badan la isticmaala badana 8 kamida 12 kaas ay la isticmaala afar kamida inta badan iyaga lama isticmaala maana waxay macnaheedu maaha waxa looga jeedaa 12 ka tirisba lama wada isticmaalo laguma laha laakiin waxa lagu leeyahay sideed kamida ayuun baas inta ugu badan la isticmaalo yani soo noqdo ama daily ahaan ma maalin u soo noqdo oo inta badan la isticmaalo afarta kale laftoodana waa la isticmaalaa laakiin kuma badna hadaba saddex midun bay noqon karaan tense marka laga hadlayo ama xagga waqtiga ficilka la qabanayo saddex midun bay noqon karaa waa wax present oo xaadir ah macna hadda jooga hadda dhacay waqtiga ficilka la qabanayo oo wax hadda dhacay ama wuxuu noqon karaa wax past oo tagay wax tagay inuu noqon karaa ama wuxuu noqon karaa future waxa weey waa wax soo socda oo mustaqbal oo hadda dhicin marka saddexdaas ma noqon kara marka laga hadlayo ficilka caadiga ah ee la sameeyo in marka wax laga hadlayo shaqo marka la qabanayo saddex mid baa sameeya waa qofka subject-ka oo ficilka falsameeyihiya iyo ficilkii oo wax weey verbkiya iyo kii uu ficil ku dhacayo object-kiya marka waa ficilkii iyo falsameeyihii iyo fal lagu sameeyay saddexdaas sameeyay badan marka ficilka la sameeyana saddex ma noqonaya waa wax hadda dhacaya oo ficilka hadda la qabanayo iyo ficil la qabtay oo tagay oo past iyo future mid soo socda oo mustaqbal oo wili la qabanin hadaba tenseska marka laga hadlayo saddexdaas ma qaybsamayaan marka waxa inta tennisiyada inta present-ka ee ka hadla inta badan ficilada dhaca xaadirka dhaca waqtiyada xaadirka dhaca waa afar weeyaan past-kuna waa afar future-kuna waa afar way isleegi hadad afar iyo afar sugayso amsa saddex afraad amsa waa 12 tenses soo qaybsamayaan marka afarta present-ka ayaan ku horeyno present continuous tense oo isagu wax way ficilka present continuous tense waxa kale kamid ah simple present tense waxa kale kamid ah ku ficilada present-ka present perfect tense waxa kale kamid ah present perfect continuous tense afarta kale past waxa way waa simple past tense past continuous tense past perfect tense past perfect continuous tense future kuna waxa way waa simple future tense future continuous tense future perfect tense future perfect continuous tense marka 12 waa kuwaas mid baynu soo qaadanaa taa ugu horeyso waa present continuous tense baynu ku horeysiin ila socdo si fiican hadaba intiina ugu horeysiin horta halkan note yar ama waxa way baraarujin ma ku siinaya baraarujinta yar waa inaad ogaato waxa lagu it's very important aad bay muhiim u tahay to know inaad ogaato these issues arrimahan before tenses intaana tenses intaana baranin oo yani barashada gelin horta waxa muhiim ah hadaad doonayso inaad tenses ka barato ama aad doonayso inaad wax way aad fahanto intan waa inaad horta marka ugu horeyso fahansantay usage maxaa loo isticmaalaa tenniska doonaysa inaad barato tenniska haddaad ogaato waxa loo isticmaalo iyo wuxuu qabtay ficil iyo waqtigeedu dhaco waad fahmi kartaa formulada qaacidada loo isticmaalo tenniska positive-ka affirmative-ka looga jeedo affirmative formula maana hadal caadi waa inaad samayn karayso oo ka samayn karayso oo hadalkii caadiga aad garan karayso waxa kaloo kamid ah question and negative waa inaad hadalkii su'aal ahaan iyo negative ahaan oo diidmadiya labadaba waa inaad isagana aad ka keeni karayso haddii lagu dhaco intaa waligeed sidoo kale subject waa inaad fahanto subject ومركز تعيد فعل كانوا وحوي ان استقبالنا عيد سمينا سوا subject وفلسفيه اما فاعلك wax loo yaqaan luqadda Carabiga hadaba laba qaybsamaya subject waa singular iyo plural bimaana qof ficilka sameynaya wuxuu noqon karaa hal qof uu noqon karaa jamacna uu noqon karaa dad fara badan bay noqon karaa hadaba subject marka laga hadlayo waxa loo yaqaano personal pronouns baa jira ama magacyaalada shakhsiyad waxa la yiraahdo marka magacyaalku sidiisaba waxa jira waxa la yiraahdo personal pronoun magacyaalada shakhsiyadeed inta marka saddexdu waa kuwan saddexda marka u qaybsan personal pronoun kuwa first person second person iyo third person marka first person ku waa qofka kuwaado waa qofka hadlaya second person kuna waa qofka lala hadlayo third person kuna waa qofka laga hadlayo eegada waa qofka hadlaya iyo qofka lala hadlayo iyo qofka laga hadlayo saddexdaas oo qaybsan hadda saddexda kala noqon karaan waxay noqon karaan first person ku ay buu noqonaya oo ay waa aniga marka waa marka singular yahay sidoo kale wuxuu noqon karaa maxay plural waa we bay noqonaysaa second person ku wuxuu noqonayaa you oo marka singular yahay hal qof yahay marka you baad isticmaalaysaa
you plural markuu yahay you isticmaalaysaa marka labadii jeer maxaad isticmaalaysaa marka haddaan ku dhaho you are a student arday baa tahay haddaan ku dhahdo you are students arday baa tihiin labada jeer maxaa isticmaalay you baan isticmaal marka waa second person waa qofka lala hadlay imka hadaan ku hadlay marka kulay arday baa tahay hadaan ku hadlay marka waa maxay waa second person waa qofkii lala hadlay weeyaan first person waa qofkii hadlay markaan leeyahay I am student anu arday baan ahay qofkii hadlay weeyaan third person kuna waa qofkii saddexaad qofka saddexaadna wuxuu ka hadlay niri waa qofka laga hadlayo iyadu waa macallimad isagu waa macallin he is a teacher she is a wax way teacher wax way macallimad marka ka hadlayso singular marka tahay oo ka hadlayso qof lab ah lab he baad isticmaalaysaa qof dhadiga markaad isticmaalaysaa maxaad isticmaalaysaa she baad isticmaalaysaa wax dhadiga marka itna waxaa loo isticmaalaa wixii kasoo hadhay intaas marka pluralkeedu wuxuu noqonayaa they buu noqonayaa intan jamceedu wuxuu noqonayaa they buu noqonayaa markaad leedahay dad fara badan oo yani laba markay wax sameeyaan they baad isticmaalaysaa dad fara badan oo wax fara badan oo dhadiga markay sameeyaan they baad isticmaalaysaa wax fara badan oo wax weey yani markay isticmaalaan they baad iyagana isticmaalaysaa marka intaas waxaan filaya inaad la fahanteen tenniska hadaba inuu galno tenniska waan soo qaadno present continuous tennis waa tenniska ugu horeeya present continuous tennis waa tenniska kuwaad haddaba su-aasha kuwaad isweydiina waxa weye what's used for present continuous tennis maxaa loo isticmaala horta present continuous tennis waa su-aasha kuwaad isweydiinayso ficilkan waa inaad marka hore horta ogaato waa ninka ugu uri garan fahmi maysid ilaa aad ogaato qodobadaas qodobkii kuwaad muxuu ahaa usage waxa loo isticmaalo marka horta bal maxaa loo isticmaala present continuous tennis is used for waxa loo isticmaala an action fal ama ficil which is happening kaasoo dhacaya now imaka hadda ficil dhacay or ama at moment of speaking ama waqtiga la hadlayo ficilka dhacaya ayaa maxay loo isticmaalaa maxay present continuous tense how many auxiliary verbs imsa ficil caawiya auxiliary waa ficil caawiya auxiliary verbs how many auxiliary verbs imsa ficil caawiya ayaa use with lala isticmaala distance tense imsa ficil caawiya lala isticmaala there are 3 auxiliary verbs waxaa jira 3 ficil caawiya use with lala isticmaala distance tense and there waxayna kala yihiin waxayna yihiin maxay verb to be marka verb to be guna laba qaybsama verb to be present iyo verb to be past marka verb to be iga caadiga saddexdaba ayaa wax weey marka loo isticmaala waa am iyo is iyo are oo ficil caawiya amta hada maxaa loo isticmaalaa amta waxaa isticmaala maxay I baa loo isticmaalaa istan waxaa isticmaala he iyo she iyo it markaad leedahay ficil caawiyad raacinayso she is badanaysa he is badanaysa it is badanaysa markaad leedahay I am I is odhan maysid ama I are laakiin maxaa nasa I am we you and they iyaguna waxay isticmaalaan maxay waxaa loo isticmaalaa are baa loo isticmaalaa oo odhan maysid we is ama we are we am لكن احنا ننسى we are you are they are بس انت اسمع رفع العويه شو دنا كواس العويه marka la joogo present continuous tense waa xawee waa tenniska ka hadla ficil hadda dhacaya markaad isticmaalayso auxiliary verb ama ficil caawiya had isticmaalayso waxa weey waa saddexdaas waa am iyo is iyo are inta way ismaanaa tusaalayaashan wax ku fahmin bal hadalka caadiga hadaba the affirmative formula waa qaacida loo isticmaalo hadalka caadiga tusaalaha hadalka caadiga waxa weey waa hadalan diidmana ku jirin su'aalna ku jirin kaas loo yaqaan tusaalaha waxa leedahay waa kan tusaalayo fiirso way marka qaacida isticmaalsa aan marka hore ku sheegay subject oo ficil sameeyay oo qofkii ficilka sameeyay waxaad u geynaysaa yaani aad isticmaalaysaa am ama is ama are balas loo geeyay verbkii ing oo ficilkii ing la socoto balas loo geeyay objectiga oo ficil sameeyay waxaan jeedaa kii ficil ku dhacay oo mafcuulkii noqonaya arfi of time oo wax way waqtigii oo falkaabkii waqtiga yaani arfi of time marka waqtigii uu ficil ku dhacay arfi of time marka falkaabka waqtiguna isagu wax way muhiimta badan maaha laakiin waa laga tagi karaa marka qaar waa laga tagi karaa wax dhib maaha laakiin isagu wuxuu ku cadeynayaa un ficilkani ama wax way tenniskani ku yahay ku inta badan ku cadeynaya waxa kale ku cadeynaya auxiliary verb kala isticmaasho waxa kale ku cadeynaya verbkaagu nooc yahay inkastoo marka qaar ficilada qaar hadii ay ing wada yihiin marka qaar ficilada qaar wada ing way jiraan laakiin tenniska waxaad u garan kartaa auxiliary verbkaaga ama ficil caawiyaha iyo verb of time marka qaacidada hadda doonaysa hadal caadi inaad isticmaasho hadal caadi waa kan tusaale bal fiirso I am teaching English now I am anigu teaching waxaan dhigayaa English ama luqadda Ingiriiska now imika hadda waxaan dhigayaa luqadda Ingiriiska macnaheedu maxay hadalkaygu waa hadal caadi diid mana kuma jirto waxaan dhigayaa luqadda Ingiriiska hadda Soma waa hadal caadi they are cleaning waxay nadiifinayaan the room qolka now aye marka maxay subject me waa they am yes are keban isticmaal are ban isticmaal oo they wanaga nidhi maxaa loo isticmaala maxay are baa loo isticmaala ficilkana waa maxay ing buu tahay the cleaning marka hore clean bay ahayd ing baan ku daray cleaning bay noqotay object name waa room oo qolkii arfa of time kana waa now waa imika tahay hadda marka waxa way kii ficilka sameeyana waa deeyo waa iyaga ficil caawiyina waa are ficilka la qabanayana waa maxay waa cleaning waa nadiifintii meesha la nadiifinaya ficilku ku dhacayaana waa halkii waa room oo qolkii objectigiisu ku noqonay waqtiga la qabanayana waa goorma waa now waa hadda inta wada la
marka markasta qaacidadaas uma isticmaalayso rules insha Allah taala xeerarka ay leedahay present continuous tense waan arki doonaa markaas wax badan aad runtii aad fahmi karaysa laakiin hadda balna tusaale horta si qaatad fahanto present continuous maxay tahay maxaa loo isticmaalaa imsa ficil caawiye leedahay hadalkeeda caadiga qaacida la isticmaalo waa nooc waa tan qaacida caadiga la isticmaalo waa inaga she tusaale saddexaad she is throwing she is iyadu throwing waxay tuuraysaa the stone dhagax now hadda dhagax bay tuuraysaa throwing marka waa tuuridii throwing we are cooking the food now we inagu ma anagu waxa weeye are cooking waxaan karinaynaa the food cunto now hadda cuntaan karinaa marka waxa weeye waa maxay waxa weeye waa qaacidadii oo dhammaystiran marka subject keebu noqonaya we buu noqonayaa auxiliary verb waa maxay waa are ficilka ing waa kee waa cooking object me waa food arf time waqtiga u dhacay waa now waa hadda intaa wadi la fahamtay maranaya haddaba inaad insha Allah taala exercise kan ka soo shaqeyso isku day waxaad ugu exercise kan feel buuxi ama waxa weeye ku buuxi in the blanks meelaha banaan wax ku buuxisa with adigoo isticmaalay maxay waxaad ku buuxisa am is are ku buuxi they dash playing waxay ciyaarayaan football kubadda cagta now imika she dash sleeping waxay ku seexanaysaa she is sleeping on the bed now hadda sararta ay ku dul seexanaysaa marka she maxaa loo isticmaalay ma am mise is mise are waad garanaysaa I dash eating waxaan cunayaa my dinner cashadayda now haddaan cunaya haddaan cashaynaya wey marka ma am is are keebe ay qaadanaysa he dash swimming ku dabaalanaya across the river webiga dhexdiisa webiga ayuu ku dhex dabaalanaya marka waa maxay ma he muxuu qaadanaya ma am mise is mise are ku buuxi insha Allah taala exercise ka soo shaqee intaan kulmi doona 10 mid wax tagay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh